Sidee u samayn kartaa caadooyin wanaagsan oo noloshaada beddela? Miyaad mar walba isku daydaa inaad wax wanaagsan samayso, laakiin ay kugu adkaatay inaad joogteyso? Runtu waxay tahay, caadooyinka wanaagsan waa furaha nolosha farxadda leh. Ka fikir sida aad subax kasta u bilaabi karto jimicsi fudud, akhris quraan, ama qorshe maalinle ah. Waxaa laga yaabaa in maalmaha hore ay adkaato, laakiin tallaabooyinka yaryar iyo joogteynta ayaa ka dhigaya kuwo fudud. Bilow wax yar oo fudud, sida 5 daqiiqo subax kasta oo jimicsi ah, ama 10 daqiiqo oo akhris ah. Mar kasta oo aad ficilka samayso, naftaada abaalmari. Tusaale, biyo cab, nasasho samee, ereyo dhiirrigelin sii naftaada. Ha iloobin, caadooyinka wanaagsan inay u baahan yihiin samir. Maskaxda iyo jidhkaaga waxay baranayaan ficilka. Ugu dambeyn, waxay noqonaysaa arrin dabiici ah. 21 ilaa 30 maalmood kadib, waxaad ogaan doontaa isbeddel weyn oo noloshaada ku yimid. Guushu waxay ka timaadaa joogteyn, dadaal, iyo qorshe. Bilow maanta, ha sugin waqti kale, maxaa yeelay maalin kasta oo maanta ah waa fursad aad ku dhisi karto naftaada.